السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قيمة قايا بدنا نقص نقد وعن واحد سو قرنا أرجومنتين أفريق طمنات قيبتي سافرات برشة بالتنتبيه قيبت كويس سيدا دكتين براي وحنا صار سمعنا دمان أرجومنتاش كوسية كان فريق طمنات تصالة كان كوبات إلى كان سدحية طمنات قيبة هذا فاهنتي قيبة كويس إن شاء الله واحد كده ونكرتين يوتيوب أوكي muuqaalkan ama argumentan waxaan uga hadlaynaa precedence encroach macnaha gawaarida sida ay u kala hormarayaan iskoosku waa muhiim inaad fahantaan sababtoo ah kuwiiska inta badan way soo galaan su'aalahan muuqaalkan like noo saara saaxiibtiin kale la wadaaga aad wada maasantiin ka bogasho wacan ka faa'iideysi wacan nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è S e D contemporaneamente PL falso asxaab qiimaha badan sababtoo wuxuu yiri nell'intersezione iskooska di figura meesha ku soo l'ordine di transito kala hormarid gawaarida dei veicoli e waxa weeye S e D hal mar wada gudbaayo S e D hal mar wada gudbaayo contemporaneamente sidoo kale waxa hal mar wada gudbaayo BL ama waxa gudbaayo S e gudbaayo D ku xiga kadibna BL hal mar kala wada hormarayaan oo falso ah sababtoo ah S hormara okay way B ku xiga L ku xiga D u dambeeyo marka D duwe ma noqon karo falso okay nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo H è l'ultimo ad attraversare l'incrocio allora nell'incrocio rappresentato iskooska meesha ku sawir noo muuqda in figura i veicoli gaariga H il veicolo H gaariga H midka waxa way moogtahay kan waa soma e waxa way l'ultima ad attraversare l'incrocio midka ugu dambeeyo iskooska goynayo H la risposta vero è sababtoo ah ko waxa gudbay D oo destra gaariga markasta waxaad fiirisiin dhankiisa midig midka oo gaari kale ka xigan kana gudbay kan markuu gudbo kana midigtiisa banaanayso kana ku xigo kan markuu gudbo kana midigtiisa banaanayso kana ku xigo kana u dambeeyo la risposta vero okay Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo O transita prima del veicolo H ma dopo il veicolo L. Allora, secondo le norme di precedenza sida qawaaniinta ama sharcigu qoray nell'incrocio iskooska rappresentato in figura meesha ku sawiran il veicolo O gaariga O yiri transita wuxuu gudbayaa prima del veicolo H gaariga H asaa ka hormarayo yiri H midka jaalaha waa soo H asaa ka hormarayo yiri ma dopo il veicolo L markuu gudbo allora il veicolo O wuxuu gudbayo yiri prima del veicolo H kan waaye ma dopo il veicolo L falso waaye barke waxay u kala gudbayaan ko waxa gudbaya L iyo H kana H aya calaamadan qarnays hal mar wada gudbay kadib B ku xiga O u dambeeyo marka O ma noqon kara prima del veicolo L okay siamo nell'incrocio rappresentato nelle figure il conducente del veicolo P alla precedenza su tutti i veicoli allora il veicolo P waa kan wuxuu mudnaanka leeyahay oo dhammaan gawaarida falso ah sababtoo trama ko gudbay iyo kan labadan way istaagaan sababtoo ah señale dare precedenza meesha ugu dhagan waxa qasab ku ah gawaarida kale inay mudnaanta siiyaan kadib B ku xigo B gaan caadiga u dambeeyo okay marka il veicolo P alla precedenza falso è tutto ok secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo A deve attendere il transito del veicolo H il veicolo A waa kana deve attendere waa inuu sugaa il transito ilaa ku gudbay veicolo H vero waa sababtoo ah veicolo H midigu u leexna gaari kama xigo si gaarigan isma taabtaan H markuu gudbo A ku xigo F ku xigo L u dambeeyo marka il veicolo A waa inuu sugaa H la risposta vero okay Nella situazione rappresentata in figura i veicoli transitano nell'ordine CRHA C goodbye dai C midkan gaduudku waaye R ku xigo dhahay HA allora innanzitutto C waa gudbaayo sax waayo labadan waa inay ka istaagaan C gudbaayo R ku xigo A ku xigo maadaama midigtiisa banaanayso H u dambeeyo marka inta wuxuu dhahayaa H horeeya A u dambeeyo no falso okay c'è una piccola fregatura siamo secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli C e R passano per primi ok
e contemporaneamente. Allora gaariga G waa kan iyo R hal mar ay wada dhaqaaqayaan uu yiri gawaarida kalena gaarigan kale ayaa kormaray falso berke kow R ayaa gudbaya midigtiisa ay banaan tahay a ku xiga G u dambeeya marka G R hal mar ma wada dhaqaaqay karaan falso okay. Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, i veicoli devono transitare nel seguente ordine. Allora, dovendo attraversare, marca arabna inaan goyno l'incrocio rappresentato in figura, meesha ku sawiran i veicoli gawaarida devono transitare waa inay u kala gudbaan nei seguenti ordine sida xarfaha ay u kala leeyihiin. E a hormarayo dhahay, G a ku xigo, A L R. Allora, E waa kana G kadib A kadib L kadib R una katato waa sababtoo ah kow waxaa dhaqaaqaya L ayaa dhaqaaqaya dhexbartankaanu istaaga R ayaa dhaqaaqaya E ku xigo G ku xigo A ku xigo L u dambeeya markaas oo dhexbartanka taana falso okay. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo C deve passare dopo il veicolo RE. Allora, il veicolo C waa kana deve passare waa inuu gudbaa dopo markay gudbaan RA vero way perché kow RA gudbaa midigtiisa ay banaan tahay kadib A ku xigo G u dambeeya marka il veicolo C waa kana deve passare waa inuu gudbaa dopo kadib markay gudbaan i veicolo gawaarida RA vero way okay. Nell'incrocio rappresentato nelle figure, il conducente del veicolo A può attraversare l'incrocio insieme al veicolo C dopo il transito del veicolo L. Allora, il veicolo A waa kana può transitare wuxuu la goyn karaa isgooskaas l'incrocio insieme asoo hal mar la dhaqaaqay il C A i G hal mar ay wada dhaqaaqayaan ma dopo il veicolo L markuu gudbo vero waayo kow L ayaa gudbaya L kan madowga waayo midigtiisa way banaan tahay kadib G iyo A hal mar ay wada dhaqaaqayaan waayo kan ayagaa mudnaanta kale kadib D yaa maray quindi A e C hal mar ay wada gudbaan vero okay. Nella situazione rappresentata in figura, il veicolo C deve disimpegnare l'incrocio per ultimo. C kan waaye waa inuu gudbaa per l'ultima vero waaye sababtoo kow B yaa gudbaayo aka ku xigo kadib G u dambeynaa waayo kan midigtiisa way banaan tahay kan markuu gudbo kana midigtiisa gaari kale ka xigeenin gudbaa G u dambeeya okay vero. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, i veicoli R e C transitano contemporaneamente. R e C kan waaye R e C passano hal mar isla wada dhaqaaqaan falsissimo waaye sababtoo kow R gudbay kaligiis maadaama midigtiisa ay banaan tahay A ku xigo G u dambeeya marka hal mar ay wada dhaqaaqaan wax hal mar wada dhaqaaqay ma jiraan falso okay. Nell'incrocio rappresentato nelle figure, il veicolo N attraversa per prima. N kan waaye attraversa per prima vero mia falso perché N wuxuu dhaqaaqayaa parte per prima waaye kadib dhexbartanku istaaga R ku xiga A ku xigo N markaas waaye falso attraversa waxa laga wadaa inuu wada goynayo. Nell'incrocio rappresentato nelle figure, il conducente del veicolo R ha la precedenza rispetto al veicolo A. N wuxuu mudnaanta ka leeyahay yiri R okay. N wuxuu mudnaanta ka leeyahay R wuxuu mudnaanta ka leeyahay A. R ha la precedenza rispetto al veicolo A vero waaye sababtoo ah N soo dhaqaaqay intuu soo istaaga R gudbay A gudbay N u dambeeyna quindi la risposta è vera ok. Nell'incrocio rappresentato nelle figure, in figura i veicoli transitano nel seguente ordine. Gawaaridu waxay u kala gudbayaan sida xarfaha ay u kala leeyihiin oo meesha u qoran D baska waaye A ku xigudha R una katato waaye barke kow waxaa gudbaya saxaabaya R gudbaya midigtiisa ay faaruqta R markuu gudbo waxaa gudbaya D A u dambeeya marka D iyo A isku ma xigsan karaan R mu dambeynaa falso waaye. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo O transita prima del veicolo A. Il veicolo O waa kan transita prima del veicolo A kan waa vero waaye sababtoo ah taraam horta markasta mudnaanta asale asaa gudbaayo soo
taraamka fiili iyo koronto ku shaqeeya kadib labadan kee midigtiis banaanaanays kana gudbaya kan marka kana kale beer waa okay. Nell'intersezione di figura il veicolo A può transitare prima del veicolo R ma dopo il veicolo N. Allora nell'intersezione iskuuska in figura meesha ku sawiran il veicolo A gaariga A può transitare wuxuu gudbi karaa prima del veicolo R inuu R ka hormaro ma dopo il veicolo N. Vero waaye perché labadan segnale dare precedenza meesha ugu dhegan gaarigan waa inay labadood ka wada istaagaan okay. Kadib kan markuu gudbo kee midigtiis banaanaanays kan gaduudka waayo kan waa intuu u leexnaa kana gudbaya A R u dambeeya vero waaye okay. Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo H deve attendere che siano transitati i veicoli D e B. Allora il veicolo H waxaa waaye midkan gaduudka deve attendere waa inuu sugaa che siano transitati inay gudbaan ilaa ay ka gudbaan i veicoli gawaarida D e B labadan falso waaye perché H asaaba mudnaanta leh kow H gudbaayo D ku xiga B ku xiga ilaa u dambeeya marka H waa inuu sugaa D e B falso waaye saxaabe okay. Nell'incrocio rappresentato nelle figure il conducente del veicolo B deve dare la precedenza al veicolo N. Allora il veicolo B waa kana deve dare waa inuu siiyaa mudnaanta la precedenza al veicolo N vero waaye perché midigta asaa ka xig kow kana soo dhaqaaqaya dhexbartan ku istaagaa kana midigtiis banaanaanayso labadan hal mar ay wada dhaqaaqayaan madowga meesha taagan kadib marka B waa inuu mudnaanta siiyaa N vero waaye okay. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente ordine. Secondo le norme sida sharciga qawaaniinta ku qoray nell'incrocio iskuuska rappresentato in figura meesha ku sugan i veicoli gawaarida transitano waxay kala gudbaan nel seguente ordine sida ay u kala qoreen RCA vero miya falso waaye perché R midigtiisa way banaan tahay waa la gartay wuu gudbaa A ku xigo mar hadduu R gudbo A midigtiisa banaanaanaysa C u dambeeya. La risposta è falso, ok? Nell'incrocio rappresentato nelle figure il veicolo N transita dopo il veicolo C e dopo del veicolo S. Allora il veicolo N con Y transita wuxuu gudbaa dopo il veicolo C, ok? E dopo il veicolo S una cazzato è perché ko waxaa gudbaya S yaa gudbaya midigtiis banaan tahay N ku xiga C u dambeeya marka N transita dopo il veicolo C falso, ok? Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo E deve attendere il transito dei veicoli N e R. Allora, il veicolo E waa kana. Okay. Il veicolo E waa kana waa inuu sugaa N R u dhahay vero miya falso waaye perché L yaa gudbaya midigtiis faaruq tahay banaan tahay oo gaari ka xigan E yaa ku xiga N R asaaba ka hormaraya marka inuu sugo u dhahay falso waaye saxaabe okay. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo H transita dopo il veicolo O. Allora il veicolo H waa kana transita wuxuu gudbaya dopo il veicolo O kan markuu gudbo una cazzato waaye perché kan waa inuu mudnaanta siiyaa gawaaridoodan kow waxaa gudbaya L iyo H hal mar ay wada dhaqaaqayaan B yaa ku xigo O u dambeeya okay. Marka H transita dopo il veicolo O no, la risposta falsa. Siamo? Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve dare la precedenza al veicolo B. Il veicolo L waa kana deve dare waa inuu siiyaa mudnaanta al veicolo B esatto perché ko waxaa gudbaya gaduudkana gudbaya B ga oo gaari kale ka xigan D a ku xigo mar hadduu kan gudbo midigtiisa banaanaanayso D a ku xigo B a ku xigo oo labadan mar hadday gudbaan midigtiisa banaanaanayso L u dambeynaa okay. Quindi il veicolo L deve dare waa inuu siiyaa la precedenza mudnaanta al veicolo B vero waaye okay. Ku raaxayso. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo N deve attendere il transito del veicolo E. Il veicolo N kan Y deve attendere waa inuu sugaa il transito del veicolo E gaarigan vero waaye perché ko L yaa gudbaayo
a ku xigo n a ku sii xigo marka maadaama kan markuu gudbo kan gudbayo waa kan waa inuu sugaa kan ilaa uu ka gudbayo la risposta vero okay. Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C attraversa per primo C kan miya kow gudbaa u dhahay run miya false waay barkee kow waxaa gudbaya D oo midig u leexanayo dhankiisa waxba ka xigin D markuu gudbo C ku xiga A ku xiga ka u dambeeyo okay. Quindi il veicolo C marka koowaad uu gudbaa false waay. Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine. Allora, scorso meesha ku sawiran uu yiri nell'incrocio scorso rappresentato meesha xaadirka ama noo muuqda in figura i veicoli gawaarida passano waxay u kala hormarayaan u kala gudbayaan nel seguente ordine sida loo qeexay xarf ahaan. C hormarayo dhahay A ku xigo C waa kana A ku xigo dhahay A ku xigo D u dambeeyo vermiya false way barkee kow D hormarayo C ku xigo A ku xiga A u dambeeyo marka A dhex bartan ku gali false waa saabqayaan muhiimadu waa inaad shaxda fahantaan kadibna banooniga ama leystaan okay. Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E passa prima di quello B ma dopo il veicolo A. Allora il veicolo E u dhahay passa wuxuu gudbayaa prima inta kores di quello B kan uu ka hormaraa u dhahay ma dopo il veicolo A wuxuu ka dambeynaa ka vero way perché allora il veicolo A markuu dhaqaaqay intuu istaagaa sooma ma dopo il veicolo no, secondo me la risposta è falsa. Il veicolo wuxuu yiri il veicolo E passa wuxuu gudbaa prima di quello B ok ma dopo il veicolo A vero way perché kow waxaa gudbaya A dhaqaaqa intuu istaagaa kana ku xigo kan markuu dhaqaaqa kanoo dhex bartanka taaga B ku xigo marka dopo il veicolo B ma dopo il veicolo A. Allora il veicolo E kan waaye passa wuxuu gudbaa prima di quello B kanuu ka hormaraa u dhahay okay ma dopo il veicolo A kanuu ka hormaraa laakiin kana ka hormaraa dhahay. Secondo me è vero way perché A markuu soo dhaqaaqay intuu istaagaa waa inuu sugaa sooma kan markuu dhex bartanka istaago kanaa gudbaayo kadib kanaa gudbaayo. Secondo me la risposta è okay. Nell'incrocio secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O transita per ultima il veicolo O questo qua transita per ultima vero way perché kow waxaa gudbaya H oo kana jaalaha iyo L hal mar wada gudbayaan B ku xiga labada mar haday gudbaan kana midigtiisa far banaan oo gaari kale ka xigan kana gudbaya kadib oo u dambeeyna la risposta vero okay. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine. Gawaarida waxay kala gudbaan sida inay muuqato. Secondo le norme sida qawaaniinta ay qorayso di precedenza kala hormarid nell'incrocio rappresentato meesha ku sawiran figura aan u jeedno i veicoli gawaarida passano waxay kala gudbaan nel seguente ordine sida xarfaha ay kala leeyihiin ay kala hormarsiin. P gudbaayo dhahay B waa kana kadib B gana ku xigo dhahay kadib N D u dambeeyo tutto contrario perché kow D gudbaayo okay oo midigtiis banaan tahay B markuu gudbo P ku xigo B ku xigo N u dambeeyo marka P u hormarayo false okay. Saxaabay my brothers and sisters man fahanteen sooma hadda marka maasha Allah sida inay muuqataba ما شاء الله هذا أصحاب قيمة بدن سيدنا مكتب وان دميناه هذا وحن فيرنا نتيجة إن شاء الله بالله الكريم أنت عن قلبناي أنت عن صحناي أوكي وحن فيلانا واحد بدن كوض فايدين أما هذا كوض فايد دونتين وقال كذا لايك نصارتان إذن كيو جرات كينا هدرت النتيجة فيرنا إن شاء الله. ما شاء الله أصحاب قيمة قيا بدن سيدني مغتبة عشر كان أساسيا كل دميني وإحنا ما نقلدن وأرجمتين أفريد طبنات قيبتي سأفراد إن شاء الله بالله الكريم دوريو توان قيبو ككوبي عملينا
marka aan dhameyno argumentation iyo tobnaada bilaab doona asxaab qiimaha badan aan isla socono. ma ahaan doono YouTube-kan mid aan ka joojin doono casharada ilaa aan ka dhameeyo 25 argument oo aan ka gaaro hadafkayga iyo targetka wuxuu ahaa. insha Allah idinkana guuleysta. waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka wada faa'iidi doontiin idinkiyo 50 sano hadda kadib dhalinyarta Talyaani imaan doonto inay wax ka wada faa'iidi doonaan. insha Allah aad iyo aad wada mahadsantiin. guuleysta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.